sannadood horteed ayay ahayd maalintii Ingiriisku dalka ka baxay. nasiibna waxaan u yeeshay in maalinta aan noqdo ninkii ugu horreeyay ee calanka loo dhiibay ee calanka Soomaali leedahay calan Soomaali leedahay oo xor ah oo Soomaali oo dhammi meel kastaba ha joogtay maalintii ninkii loo dhibay inaan noqday ayaan Ilaahay ugu mahadnaqay. waxa la gumaysanayay geyga Soomaaliyeed muddo ku dhow 80 sanadood. wuxuu soo bilaabmay 1884 ama 85 laga soo bilaabo waqtigaas ilaa laga soo gaaro 1960kii Soomaali waxay ku kala jirtay gacmo shisheeye taladooduna waxay ka go'i jirtay xafiisyada Yurubiyaanka ayay ka go'i jirtay. waxa laga tiriyay gunnimadaas Soomaali soo martay suugaan badan. marka dhanka suugaanta la eego suugaantu waxay ku fiican tahay waxba lagu xusuustaa oo dhacdadii ku soo martay bay sumad u tahay. heesaa laga tiriyay halku dhigyaa laga tiriyay gabdhaha ka buraanburay waxa laga tiriyay heeso ku tusaya tusaalaha maalinta wixii yaalay oo aad si fiican sawir fiican uga arki karayso. gumaysiga wax lagu soo jiray waxa la yimid 60kii oo ay muhiimadeena maanta noo tahay inaynu is-xusuusino. 60kii markii la yimid Soomaali waxay heshay laba guulood oo waaweyn. guusha koobaad waa xornimo, guusha labaadna waa midnimo. labadaasi ma kala dhacaan midnimada iyo xornimadu oo midna la'aanteed ta kala la'aanteed itaal ma yeelato. khudbad caan ah waxa jirta oo Maxamed Xaaji Ibraahim Cigaal Allah ha raxmee uu jeediyay Soomaalina oo kula hadlayo 1960kii 26 Juun oo Soomaali u jeediyay oo uu leeyahay geedigii gunnimada aynu soo dhaxayaamayna waynu ka baxnay laakiin mid ka daran baa inoo hadhay oo ah sidaynu inagu isu xukumi lahayn inagu wada noolaan lahayn bani aadankana ula noolaan lahayn. jihaadkii weynaa baa inoo hadhay ayuu Maxamed Xaaji Ibraahim Cigaal khudbadiisa uu gun iyo gunaanad uga dhigay. guntii iyo gabagabadii run ahaantii waxaan dhihi karaa waqtigan la joogo Soomaalida markii Soomaalidii burburtay waxa la mid ah dhamaan oo aad looga naxo. Soomaalida Kenya waxba kama duwana Soomaalidii burburtay. Soomaalida Ethiopia waxba kama duwan kuwii burburay. Soomaalida Djibouti waad aragteen waxa ka haysta. runtii waxa la dhihi karaa cunsurka iyo qofka Soomaaliga ah horumar la sheego oo 60kii sano ee xorriyadu jirtay uu gaaray oo la taaban kara ma jirto. farxadaas 60kii waa lagu caanamaalay. Soomaali way ku baraadhay, way ku bulaashay. waxay ku gaadhay dawladaha Afrika ama East Africa ugu awood badan haday tahay sumcad, haday tahay dhaqaale iyo haday tahay waxbarasho intaba. guushii Soomaali ay ku gaadhay 60kii iyo midnimadii wada jiray ay heshay waxay kuftay oo aysan wali si wacan u kicin 1990kii markii la soo gaadhay. ilaa markii uu qarankeeni kufay ilaa maanta la joogana waxay ku sugan tahay wax bani aadanka iyo dawladaha caalamku qayb ka mid ah ay inagu ceebeeyaan inagu cambaareeyaan innaga Soomaaliyihiina aynan inta badan isku dhaleelin. waase qabyaalada iyo qabiilka oo aynu ka door bidnay qarankii Soomaaliyeed inuu marka lacagiisa ku istaago. waxaan kaliya u rabaa inaan ina xusuusiyo inaynu joogno toddobaadkii farxadda, toddobaadkii xornimada, toddobaadkii midnimada. mar kale iyo midnimana aynu filayno inay gacanteena soo gasho Soomaalina ay mar kale u midowdo. sababtoo ah waxa laga dhaxlaa marka dib ku soo gaadho 10 baa laga bartaa. Soomaalidu gumaysiga 10 bay ka baratay. 10kaas oo ah dibindaabyooyinkii iyo dhibaatooyinkii uu gumaysuhu geysan jiray. markii ay xorowdayna ay isu timid oo ay guusha ay ku gaadhay ay kow ka ahayd dhibaatooyinkii ay soo mareen intii la gumaysan jiray. oo ilaa hadaba la yiraahdo Soomaali qaar baan waligood xornimo arag. waxaa la inaga doonayaa ama inala gudboonba inaynu dhaqaalayno calanka halka inoo taagan. waxaynu ku dhaqaalaynaynaa wadannimo
dhammaan inaynu meel uga soo wada jeedno qof waliba uu dhankiisa ka ilaaliyo qof waliba uu ka kale aanu ku hadlaynin calankaanu sugaynayeen saankiisaynow seerma weydo hilaacdayow sagal maanta daruurado sigadiinaga maydhayow saqdhaxaanu ahayne kii soo saaray cadceedow samada kii wekaaye xidiga mid la siiyayow saaxirkii kala guure sareeyo manusqaamo aan siduu yahay eegno ka nasiibkana saare